kusoo dhawo marka hore Goobjoog TV waxaa sharaxaad inaga siisaa Soomaaliya inay federal qaato ma tahay mid ku haboon mise ma بسم الله الرحمن الرحيم aniga ismalihi federaalku ma ku haboon yahay iyo ma ku haboona waxa ka jawaabi doona waaqica ayaa ka jawaabi doona laakiin federaalku waa heshiis siyaasadeed ee Soomaalida ay gaareen wali ma noqonin heshiis bulsho oo aan ula jeedo bulshada Soomaaliyeed inta afti laga qaaday dastuurka ay aqbashay ma laakiin xal ayaa loo arkay federaalkana sidiisaba dhowr nooc oo ku yimaada wadamada federaalka qaadanaya mid kamid ah anaga waanahay dadka Soomaaliyeed waxaan maqlaa ayagoo sheegaya inta badan dadku inay kala dhaqan iyo diimo ay duwan yihiin iyo kala deegaan taas kaliya federaalka adduunka ku imaamada anigu dadka federaalka aad u darsan kamid ahay risaaladeydi ama master degree federaalka ku saabsanaaba waxa federaalka loo qaataa kamid ah markuu dalku kala tago oo deegaanadu awoodi kala madax banaan ay sameystaan Soomaaliya ka dhacda taas waay sida la isugu soo celi karo marka ma aha sidii dawladii centerka aad ee gacanta iyo awoodda dawladda dhexe ay ku haysatay waa in hab nidaam federaal ah negotiationki iyo hadalka la isugu soo noqonayo oo ka dhaco markii su'aasha ah federaalkan ma habooya mise ma haboona waliba lama fulin federaalki dhowr nooc looma fulin sharci laga ma dhigin dastuurka article ku qoran kaliya ayuu ku yaala laakiin wuxuu u baahan yahay sharciyada maamulka federaalka in la sameeyo waxa la yiraahdo administrative federal laws in la sameeyo u baahan tahay oo ah sharciyadii maamulayay nidaamka federaalka ah si u wada shaqeynayaan wasaaradaha kuwa federaalka iyo kuwa localka dowlad goboleedyada si hanaanka maaliyadda u wada shaqeynaya si hanaaniyada dhan oo maamul ee dawliga ah sharciyada u baahan dhan lama sameeynin oo hadda lama dhaqan gelinin sida dowlad goboleedyada iyo ay isku maamulayaan lama awoodaha dastuurka si kooban ay ugu yaalaan laakiin si faahfaahsan uguma yaalaan wali sidii loo fulihayna sharciyo laga ma sameeynin waxa soo dhan marka u baahan in maaragtay la meel mariyo oo la hirgeliyo u baahan tahay markaas la ogaa kara federaalku ma ku haboon yahay mise kuma haboono ma keeni kara federalismka la qaatay muramo dhanka xuduudaha ah ee ka dhaca maamul goboleedyada dhexdooda waa abuuri karaa waxaan u maleynayaa sababtaas waa sababta loo sameeyay guddiga xuduudaha loo sameeyay wuu abuuri karaa muran xagga xuduudaha wuu abuuri karaa muran oo maaragtay u dhaxeeya dowladaha gobolka iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhaxeeya marka sideedaba dasaatiirta markii la sameynayo ama dastuurka markii loo sameynayo bulsho colaad ka soo baxaysa waa la qabiyeeyaa dastuurka waxa loo qabiyeynayo waxa waaye doodda siyaasadeed ayaa la rabaa inay dhammaystirto dastuurka oo qaladaadka soo fooca ee soo baxa ka yimaada markii dastuurka qabyada la fuliyo yaa la rabaa doodahaas iyo ka imaanaya muranada ka soo baxaya isqabsiga ka imaanaya in inta la hormariyo dastuurka lagu dhameystiro ayuu baanta dadweynaha loo gudbiyo laakiin waxa ii muuqata ilaa hadda oo dastuurka qabyada samaysan yahay siyaasadii xasilila siyaasadda markii xasisho ayaa loo gudbi karaa taas kaleeto oo dad xil kasta oo siyaasadda xasili kara oo og waxa maqan iyo waxa dhameystiray waxa mudnaanta leh ay yimaadaan ayaa la qaban karaa marka aniga waxaan isleeyahay in muran uu imaanaya oo dowlad goboleed dhexdeeda waa ka imaanaya dowlad goboleed dowlad federaalka uu ka imaanaya dowladda federaalka dhexdeeda uu ka imaanaya sida ay iskula shaqeynayaan maamulada dhan waa ka imaanaya maxkamadaha dowlad goboleedyada iyo maxkamadaha federaalka maaliyadda hay'adaha maaliyadda hay'adaha maaragtay cadaaladda oo dhan hay'adaha maaragtay nabadgelyada oo dhan waxaas oo dhan maamul lagu kala hagay u baahan in la dhiso taas waa sababtaas muhiim ka dhigaysa baarlamaanka inuu xasilan yahay oo sharciyada noocaas xoog saaro ku mashquulsan yahay hogaanka siyaasadeedna ay taas oo kale ay ka shaqeeyaan taas muhiimad ka dhigayso haddii dadweynuhu diidaan dastuurka waa in la soo celiyaa dastuurka la sameeyaa way sahlantahay awoodda ugu dambeysa ee dowladda nidaamka dimuqraadiga shacabka iskale shacabka haddii ogolaadaanna waa okay haddii ogolaa waayaan in la soo celiyo oo waxa ay diideen dabcan la aqoonsado waa la fahmi karaa dadku waxay diidan yihiin waxa ay diideen dadkana laga noqdo oo golayaasha cidijinta lagu soo celiyo labada golo hadda noo dhisan online kuwaasna ay gadaal ugu muraajiciyaan ugu noqdaan si hore loogu hana qaaday u baahan tahay haddii Soomaaliya federaal qaatay federaal noocee ah ay Soomaaliya u baahan tahay sideeda aanu dadka siyaasadda ka shaqeeya waaqican ahay waxa aniga aan jeclahay iyo waxa inay ku haboon tahay inay ku haboon ahayn maaha Soomaaliya way kala tagtay way kala irdhowday maamulo kala madax banaanay samaysatay ma jirto awood isku soo celi karta awood siyaasadeed inta wadanka qabsata isku soo celi karta ma jirto marka waa in la isugu soo celiyaa si negotiation oo wada hadal Soomaalida isku timaada waxaanan qabaa dadku Soomaalida federaalka ay sida siyaasiga u qaateen way tijaabiyeen qoladii shalay ku ordaysay maanta waxa laga yaabaa inay xamaaskii oo kale u qabin
qolada hadda u hamuun qabtaane inay kasoo hamuun begato la arko marka iyadoo lasoo tijaabiyey nidaamka ayaa fiican in laga wada hadlo haddii asaga lasii xoojinayo haddii nidaam kale waxaa jira maamulka dhexda furan la yidhaha decentralized system oo laakiin unitary stateka uu yahay nidaamkan uu federal yahay decentralized uu yahay haddii federaalka naftiisa la qaadanayo noocyo kala duwan uu leeyahay nooca la qaadanayo oo dadku ay soo arkaan markii la yidhaha dowlad goboleedka canshuurtaada bixi oo miisaaniyadda ciidankaada bixi oo maamulka miisaaniyadiisa bixi meelay wax ka soo galaanna ay weyso waxaa laga yaabaa inay u baahato dowladda dhexe soomaalida marka midnimada ay raadinayso federaalka way ku dhex jirtaa federaalku macnaheeda midnimo xumo maaha dowlado badan oo midaysan oo awood leh oo kuwa adduunka ugu waaweyn oo Mareykan kow ka yahay Australia iyo Canada iyo Switzerland iyo Nigeria iyo dowladaha Afrika ugu waaweyn oo dhan ayaa federaal ah iyo Pakistan oo Asia ugu weyn dowladaha kamid ah kuwaas oo dhan waa dowlad federaal marka federaalku cilada maaha waa sida loo fulinayo sida kaliya Soomaalida isugu soo noqon kartane waa awood la negotiate gareeyo laga wada hadlay in la isku og yahay laakiin waxa ayaan daraa ayadoo dadkii kala irdhoobay dalkii kala tagay awoodii hadda iyo isku soo celinaya Soomaalidii hadday yimaadaan dad raba inay sidii civil warkii ka hor u dhaqmaan dowladnimada u dhaqmaan oo tala gacantooda gashtaan oo dhahan anaga kaliya cindeeda hadli karta mal anaga kaliya wax maamulayna oo nidaamkii dictatorka ay dadkan ay ka dagaalameen oo dhowr iyo 20 sano dowladda loo ahaa dhowr sano ka horeysana jabhada iyo duurka loo galay dadka raba inay soo celiyaan ayaan darada haysto Soomaali taas waay oo na fahamsanaynba xaaladda aan ku jirnay dadku meeshay kala gaareen Soomaaliya waxa in badan sheegtay inay tahay geopolitical inay leedahay oo ay tahay geeska Afrika ama wadamada Carabta ah inay u tahay meel muhiim ah Soomaaliya geopolitical noocee ah ay leedahay geopolitics-ka waa arrin aad muhiim u ah sababtoo ah Soomaaliya waxay ku taalaa meel aad muhiim uga ah adduunka juqraafi ahaan sababtoo ah waxay ku taalaa badda cas iyo waxay haystaa Soomaaliya iyo badweynta Hindiya labadaba waxaan ay yiraahdaan geostrategic checkpoints macnihii meelaha isaga gudbaan caalamka ganacsigiisa isaga goosho iyo marinada ay maraan inta ugu badan ayay Soomaaliya muhiim u tahay dhabarka ay ku haysaa la socotaan meeshaas waa wax la yiraahdo madyaq baawmandab ama luuqa yar baawmandab la yiraahdo oo isku xira canal Suez iyo isku xira maaragtay gacanka isku xira adduunka la socotaan markii hore juqraafi ahaan kor iyo South Africa la mari jiray masaafada ay maraakiibta ganacsiga iskaga goosha Yurub iyo Aasiya iyo Afrika waxay qaadan jirtay dhowr iyo 10 maalmood 14 maalmood ka badan laakiin hadda saacado ay qaadataa markii la furay canal Suez la furay canal Suez muhiimad ma yeelan karo haddoosan jirin marinka baawmandab luuqa yarka ee cariiriga haddoosan jirin Soomaaliya marka waxay haysataa baawmandab dhinac ka haysataa dawlado badan haysta oo dhinacyaha ka haysta Yemen Eritrea Djibouti Soomaaliya dawladahaas oo dhan ayaa dhinac ka haysta marka waxaa muhiim ka dhigaya haddeertaan loolanka ka dhaxeeya horta intaan loolanka gelin sidaan la socono Europe iyo Asia ama Asia waxa iskaga gudba ganacsi ku dhow 1 trilyan oo dollar ayaa iskaga gudba marka xaggaas isku socodka ganacsiga lafdhabar ayuu u yahay waxay kaloo lafdhabar u tahay xagga amniga ama security-ga si ganacsigaas loo ilaashado ama dawladuhu ay saameynta ay ku leeyihiin gobolada bariga dhexe iyo Afrika oo ah meesha hadda ay ku loolamayaan dawladaha awoodda leh waxay u baahan yihiin inay sameystaan sadaqyo military inay ka yeeshaan meelahaas sadaqaas military ayaa muhiimad kale mar kale siinaya saan ognahay dagaalkii qaboobaa markuu jiray Soomaaliya ay ku loolamayeen Ruushka iyo Mareykanka qolaba waxay raadinaysaa inay hesho sadaq military ay ka hesho Soomaaliya marka ahamiyadda waxa uu yeelay waxa waaye meesha ay ku taalo waxa kale ahamiyad u yeelayo loolanka iyo ka dhaxaya dawladaha awoodda leh markuu xoogeysto meelahaas ahamiyadda leh waxay yeelanayaan muhiimad hadda ka soo qaad adduunka sanadihii dagaalkii qaboobaa kadib oo dhan waxaa lagu magacaabi jiray inuu yahay unipolar adduun hal awood ay ka taliso oo Mareykan ah laakiin hadda waxaa soo baxay awoodo kale sida China oo kale ayaa soo gashay oo ku soo noqotay saaxada caalamka oo raadinaysa saameyn iyo awood raadinaysa waxaa dhacay barigii dhexe oo Mareykanka ka ahaa
macalinka ugu weyn ama garantoorka ka ah damaanad qaadaha xagga amniga bariga dhexe ah ama siyaasadiisa yaa meeshii ka luga laabtay asagoo xoogga saaraya loolanka uga soo socda dhinacaas iyo Asia iyo China marka Middle Eastina bariga dhexena waxaa ka soo baxay awoodo loolamaya awoodahaas loolamayana waxay muhiimad ugu fadhisaa Soomaaliya muhiimadeen ay ugu fadhisaa loolanka hadda jira ee Soomaaliya dhexdeeda ka jira yuu u dhaxeeyaa loolanka hadda jira Soomaaliya hadda midka taagan waa midka ka dhex jira bariga dhexe kamana foga midka Mareykanka iyo Shiinaha u dhaxeeya runtii laakiin midka hadda annagana kulaalaya waa midka ka jira bariga dhexe bariga dhexe saa la socoto awoodo waxa isku haya dhowr ah oo siyaabo kala duwan isugu haya Turkiga iyo Iran iyo sida la sheegay Qatar oo dhinaca oo isku xiriir dhow inkastoo Turkiga Iranka yara ay hadana kala fog yihiin xagga markii la fiiriyo madhabkii ay dawladiyada laakiin waxa laga yaabaa masaalixda in iskaga soo dhawaadaan iyo danta iyo dhinaca kale oo ah Masar Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dawlado badan oo Khaliijka ka tirsan ayaa loolankaas oo u dhaxeeya waxa ayadana meesha qayb ka ah oo aadna muhiim u ah in la xuso Israa'iil oo ayadana qayb ka ah loolanka Middle East-ga ama bariga dhexe ka jira loolankaas bariga dhexe ka jira wuxuu ku soo dhacayaa Soomaaliya oo iyo wadamada geeska Afrika ku yaala oo dhan oo degan ama kaabaya ama kaabinka ku haya badda cas iyo badweynta Hindiya hadday tahay Djibouti hadday tahay Soomaaliya hadday tahay Suudaan wadamadaas oo dhan ay badda cas kulaalaya ayuu loolankaas saameyn waxa ognahay hadda Suudaan in maalin dhaweed ay sadhig military ka siisay jasiiradda leeyahay Sawakin Turkida haddana dawladda Qatar $4 bilyan ay gelinayso looga dhiso dekad halka Sawakin waxay dhabar ku haysaa Jidda waa meeshii dadka muslimiinta markay xajinayaan ay ku sii haka jireen xajkana ka xarmi jireen Sacuudiga iyo Masar labadaba waxay u arkaan inay tahay halis ku soo fool leh awoodda Turkiga ee halkaas dagaysa Turkiga wuxuu sadhig military ku leeyahay Soomaaliya saan ognahay oo dalkeena ah safaaradda ugu weyn adduunka iyo Afrikana Soomaaliya ay ugu taalaa dawladaha marka u haysta Turki inuu yahay halis ku yahay amnigooda qaranka ah isha ay ku wada hayaan dawladaas kamid yihiin Sacuudiga kamid yihiin Masaarida ay kamid yihiin Imaaraadka some extent ay kamid yihiin Israa'iil maalintaas waxaan akhrinayaa qoraal ka soo baxay Jerusalem Post oo dhahaya saldhigyada military Soomaaliya iyo Suudaan ka sameysatay Turkidu ay ka sameysteen waxay ku tahay halis amniga oo toos ah amniga qaranka Israa'iil ay ku tahay marka loolanka gobolka ka jira ee sida awoodaha ka jira isku hayaan Soomaaliya markasta saameyn ayuu ku yeelanaya sidaan ognahayna waa inayna mid ogaanaa Soomaali madaxdeeda iyo shacabkeeda inta iyo aqoon-yahankeeda ay ogaadaan geopolitics conflict ama loolanka juqraafi siyaasadeedka hadda jira saddex arrin ayuu salka ku hayaa midda koowaad waa sheegnay waa marinka ganacsiga iyo meelaha ay maraan strategic checkpoints waxa la yiraahdo meelaha istiraatiijiga u ah kala goosida istiraatiijiga ee uu maro marinka ganacsiga waa qodobka labaad waxa waaye dekada si marka ganacsigaas u noqdo ganacsi iska gooshi kara oo qaaradaha iska gudbi kara maaha kaliya in maraakiib lagu raro alaabta iyo shidaalka kaliya maaha waa in la helaa dekado lagu dejiyo laga dhoofiyo marka dhismaha dekadahani aad ayuu loolanka soo socda qayb uga yahay waa mid hadda ay China ay kala wareegayso Djibouti ay ka dhistay dekad ka dhistay midda kale hadda inay qaadato laga yaabo midda saddexaad waxa waaye midda labaad waxa waaye labadaas waa isku xiran yihiin midda labaad waxa waa saldhigyada militariga oo loogu talagalay in saameynta dawladda iyo ilaalinta maslaxadeeda ay leedahay ay ka ilaashato waa saldhigyada militariga waa midka labaad midka saddexaad waxa waaye pipelineska shidaalka dhuumaha shidaalka meel la marsiiyo tusaale ahaan deertaan dhuumaha shidaalka ee ka baxa khaliijka intooda badan waxay maraan gacanka Hormuz la yiraahdo ee Iran ay kulaalayso haddii markii dagaalka Iran iyo loolanka Iran iyo Sacuudiga oo sii socdo ama dawladaha khaliijka waxay ku qasban yihiin marin shidaaleed kale inay mariyaan oo ay soo aadaan dhinacan baabmandab xaqiisa ay soo aadaan marka marinada shidaalada la marsiiyo ama dhuumaha shidaalada la marsiiyo geostrategiga ama loolanka juqraafi siyaasadeedka qayb ayay ka tahay marka dawladuhu sina waxay isugu xiran yihiin masaalix sina waxay isugu xiran yihiin ideology ama sunna iyo shiico ama dawlado markaas masaalix ayaga ay ka dhaxayso oo isku xiran yihiin marka waxay ku xiran tahay waxa aad muhiim u ah marka in dhugnaasho fara badan loo yeesho Soomaaliyana
waxa markii ugu muhiimsan ay muhiimadda siinayaan waa taas waxa laga yaabaa inay dhibaatada u keenaan waa iyada loolanka siyaasadeed ee ka dhex jira wadamada carabta ah ama wadamada loo yaqaan khaliijka saameyn noocee ah ayuu Soomaaliya ku yeelan karaa waan sheegay taas waa saameynaya Soomaaliya laba arrin baa u saameynaya saa sheegtay dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan annaga juqraafiyan Afrika ku naalan laakiin dhaqan iyo siyaasad ahaan waxaan xoog u xiranahay bariga dhexe ayaan ku xiranahay saameyn weyn oo nagu yeelanaya because qolo walba waxay isleedahay Soomaaliya dawladda ka jirta ama shacabka Soomaaliya idinka soo jiita taageeradeedana hela hadday tahay in la dhiso dekado hadday tahay in dhuumashidaa la marsiyo hadday tahay in saldhigyo military intaba laga furto marka hal mid ayaa muhiim ah inaan fahanno in dawladuhu ay nagu tartamayaan waxay nagu tartamayaan ay tahay meesha aan ku naalnay ahamiyadda ay leedahay qolo walbana ay doonayso inay maslaxada ayada ay leedahay sida ay maslaxadeeda u aragto ay annaga nagula soo xiriirto oo naga filato inaan ugu jawaabno sideen uga badbaadi karnaa runtii sida horta siyaasadda amniga qaranka ay ku xiran tahay maashan national security ay ku xiran tahay wax la siyaasadda amniga qaranka marka waxay u baahan tahay in loo helo dad karti iyo aqoon iyo aragnimo u leh siyaasadda amniga qaranka fiiri kara xajmiga uu la egyahay ama culayska ay leedahay taxadiyaadka ama culayska uu leeyahay caqabadaha nagu soo wajahan intay la ag tahay markaasna ku sameey kara isbarbardhig iyo isku miisaamid midna waa muhiim inaan ogaano siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba waxay ku qotontaa maslaxad waxaan ka arkaa dad badan oo Soomaaliyeed oo shacabka iyo isugu jira iyo siyaasiyiin iyo aqoon-yahanaba waxay ku qotomiyaan siyaasadda arrimaha dibadda caadifad siyaasadda arrimaha dibadda caadifad kuma dhisno maslaxaday ku dhisan tahay dawlad kula dhalatayna ma jirto dawlad ka dhalatayna ma jirto qaarkeed waxay ku leeyihiin dawlad heblaayo waa walaalaheen waa dawlad walaalaheena waa jecelnahay madaxweynahooda waa fiican yahay dawlad hebel waa fiican tahay waxaas waa emotions waa caadifad meel ma tagaan dawladuhu waxay ka leeyihiin masaalix waxay u baahan tahay maslaxadahaas adiga ay ka leeyihiin in ayaga maslaxadahaas aad kala xisaabtanto dawlad kula dhalatayna ma jirto dawlad ka dhalatayna ma jirto halkaas waa muhiim hoostan ka xariiqaya dawlad kasta waxay leedahay maslaxadaas u baahan adiga inaad kala xisaabtanto mana jirto ina ogaano waayo dawlad samafal noogu timid ma jirto hoosta ka xariiqa waayo dawlad dadka Soomaaliyeed waa walaalaha waa islaam ama waa kuwa caraba ama waa kuwa afrikaana aan caawino aan u soo gurmano ku tiri ma jirto dawladu kasta markay halkaan imaanayso maslaxadeeda ayaa kow ah adigana waa inay maslaxadaada kow ku ahaataa masaalixda marka isba bardhigaysa waana lagu qasban yahay in maslaxadaha la kala rajaxo ma jirto maslaxaduhu islaama eka dawladaha maslaxadaha ay kala wataan iyo tharaadka kaaga imaan kara halista kaaga imaan karta waa labadaas waa ka xumaa taas in ay loobi halista dawladda kaaga imaan karta haday ku aragto inaad dhibaato ku tahay iyo maslaxadda aad ka heli karto labadaas ayaa waxa sameynaysa isku barbardhig ee kuma xirna inaad saaxiib la tahay ama aadan la ahayn inay dad muslim yihiin inaysan ahayn dad fiican yihiin inaysan fiicnayn arintu ma aha labadaas iyo taariikhdana gadaal u fiirinaysa Soomaaliya marka waxa la yiraahdaa strategic mistakes qaladaadka istiraatiijiga ay taariikhda Soomaaliya laga galay aad ay u waaweyn waana kuwa caqabadaha ku ah hanaqaadka dawladda ee Soomaaliya hadday tahay qaabkii loo maareeyay dagaalkii 77 hadday tahay xataa qaabkii gadaal markii loo noqdo xorriyadda markaan qaadanaynay iyo sida dadka ay ula dhilgareeyeen dawladihii markaas ku loolamay Soomaaliya in ay gacanta ku dhigaan hadday tahay siyaasadaha qariska Turka oo inta badan la qaadanayo iyadoo la qaadanin oo la diyaar garoobin oonan diyaar garow xoog leh iyo saaxiib iyo aalay meel lagu ogyahay aysan jirinin ayaa go'aanada qaar waxa la iskaga qaadanaya waxa kamid ah dagaalkii 77 qaabka lagu galo kale iyo sida loogu jawaabay dawladdu markaas aan lahayn isbahaysiga ee dawladda Ruushka iyo sida loo waayay in saaxiibo kale oo loola maayay Ruushka inaan kasbanana aan ugu fashilan aan u weynay because marka Ruushka kale aad rabto aad bixiso oo aad ku tuunsantahay inuu xeel Maryam taageerayo ama Ethiopia saaxiibka kale adoona meel ku ogeyno kasbanin haddaad asagii meesha ka saarto waxa la yiraahdaa dagaalkii uu nagu soo qaaday Ruushka waagaas waxa la yiraahdaa wuxuu sameeyay wax la yiraahdo the longest bridge ever oo adduunka dhaca macnihii jisri ama buundo hawada ku socota kaalmo ah adduunka tii weynooda la sameeyay macnaheedana wuxuu yahay waxa laga soo hubka iyo ciidanka laga soo daabulaya Moscow oo la keenayay dagaalka Ethiopia iyo Soomaaliya 10,000 oo askari oo Kuubana laga soo qaaday Angola Ruushka xilligaas 77 $1 billion uga baxday
dagaalkaas keliya taangiyada iyo baabaayada iyo hubka noocyadiisa kala duwan diyaaradaha ruushka lagu keenaya oo non stop flight ah oo kusoo hakanaya Yemen oo imaanaya meesha la yiraahdo Soomaaliya dagaalka keenaya oo daadinaya taangiyada ciidanka diyaaradaha daadinaya marka adoona meel ku ogeyn alliance ama xilfi ama taxaaluf meel ku ogeyn ama isbahaysi hadda dagaal noocaas oo kala go'aankiisa iska gaarto ayatiinkaaga dambe waana ka saameeyay galaaftayba dawladnimada Soomaaliya marka go'aanaha la iska qaataa qaar iska tuura oona ka soo horjeeda mararka qaarkood xataa caraafta diblomaasiga oo ka hor imaanaya waxyaalaha aan akhriyo waxaa kamid ah ruushka walwalkii ka qabeen in markaas la dilo saraakiishii iyo faamiladii halkan ka joogay oo ilaa 3 kun ku dhawaa oo saraakiil iyo dad degan isugu jiray cabsi ay ka qaadeen in dawladda Soomaaliya laysa dadkaas ay waxay u keensadeen waxa la yiraahdo submarineska xeebaha Soomaaliya Muqdisho la keenay si loo ilaaliyo dadkaas ama loo handado dawladda Soomaaliya marka waxa arkaysaa go'aamada qar iska tuurida nooca qaarkood la qaadanayo inay dhibaato u keeni karaan marka waxaan u baahanahay geopolitics aniga horena waan u sheegay dhowr sano ka hor haddana waxaan ka qori rabaa hadduu ilaa yiraahdo waa inaan ku qasbaa inaan qoraal ka sameeyo buug ka qoro si dadka Soomaaliyeed aad ugu ogaadaan waxa mandaqada iyo gobolka ka jira waa arrin oo aad halis u ah waana arrin waxa la yiraahdaa waa silaah duuxadeyn waxaan dhahan waa seef laba af leh waana ka faa'iidi kartaa loolankaas wayna ku galaafo kartaa oo way kula tigi kartaa marka waxay ku xiran tahay cidda mas'uuliyadda markaas haysa iyo sida uga talageliso dadka garashada ama garaadka u leh arrimaha amniga qaranka laakiin haddii dad yar oo iska xamaasaysan ama iska caadifadaysan ama dhalinyaro adiga aad ku kalsoon tahay ama dad aan bixil kas ahayn oo mas'uuliyaddaas qaadi karin ee go'aanada noocaas kula gaaraan waxay dhici kartaa in masiirka Soomaaliyeed ay dhibaato u keento dadka Soomaaliyeedna ay wax ay ka soo cawaaqib xumo ay ka soo kasba karin ay u keentay aad ugu badan oo aad iyo aad oo ku sheegay qatara iyo muuqdo sidoo kale waxa ii muuqda in laga faa'iideysan karo loolankaas ka dhaxeeya dawladaha labadaba way ii muuqdaan marka isku masaafo u jirnaa qataraha iyo halista iyo waxaan isku masaafo u jirnaa iyo maslaxa inaan ka kasbano oo ka geyn gareyno oo ka helno sideena Soomaaliya wadan iskaga yaala ma cidla ma ahayn wadan soo jira ilaa dawladnimo haystay ka badan 70 sano ku dhawaad waaye marka markaas wuxuu lahaa traditional ally wax la yiraahdo wuxuu lahaa isbahaysi oo taqliidi ah oo soo jireen oo lahaa Soomaaliya ma cidla ma oolin in la xisaabta lagu daro u baahan isbahaysiga soo jireenka ay Soomaaliya ay lahayd in xisaabta ku daro waa number 1 number 2 waxaan u baahanahay inaan isku miisaano dadka laga yaabo inay maslaxadooda ay tahay ku meel gaar iyo dadka ay tahay oo markaas duruuf ay ku keentay ayaga ku timid duruuf ayaga ku timid ay ku keentay markaas iyo dadka masaalixdooda anaga ayaga aanan kala bixi karin ama deegaan ka ahaato ama waxa naga dhaxeeyo ganacsi iyo xiriir ahaato waxa soo dhan in la qiyaaso ay u baahan tahay iyo dadka halista lagu keeni kara مثلا waxa ka dhawaajisay in hadda barbaro dawladda ay qaateen dekedeeda iyo saldhigeeda military intaba Soomaaliland waxaan ognahay inay raadinayso madax banaani ay raadinayso hal sano madaxweyne farmaajo xafiiska joogay lama hadal Soomaaliland wada hadal ma dhex marin see lagu xalli karaa mashaakilkaas waxa lagu xalli karaa wada hadal in Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ay wada galaan wada hadal siyaasadeed ay galaan oo wada hadalkaas siyaasadeed lagu xalliyo dhibaatada meesha ka jirto sababtoo anaga hadda awood aan ku difaacno dalkeena oo awoodii maadiga ahayd ma lihin tii sharciga aad kaliya haysanaa oo territorial integrity Soomaaliya inay dawladda mas'uul ka tahay oo ah mid de jure wax la yiraahdo oo warqad ku qoran laakiin de facto power sovereignty anaga ma hayno marka si la isku waafajiyo kii de facto ay awoodii aan ku ilaashalayn xuduudaheena iyo maaragtay midnimada dalkeena iyo aan ku ilaashalayn waxaan u baahanahay wada hadal inaan ka galno oo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada kala joogay awoodda ayagu de factada haysta inaan istusno maslaxada labada dhinacba waxa ku jiro inta ay la agtay laakiin haddii warbaahinta la iskaga jawaabo ma filayo inay xal u noqon karto marka aniga waxa ii muuqda loolanka ka dhaxeeya adduunka uu soo xoogeysanaya sida aan la socono hadda ka horna waan qoray waana sheegay Mareykanka waa markii ugu horeysay laga bilaabo 2001 markii oo dhacay 11 September ay dhacday waa dhowr iyo 10 sano laga jooga waa markii ugu horeysay oo 2018 halista amniga qaranka Mareykanka kow laga dhigay China أول waxay jirtay argixisada hadda second way laba la gali China waxa la keenay kow la keenay Chinese-kuna waa aragtay waxay dhisayaan wax la yiraahdo adduunka dhan ay rabaan inay ka hirgeliyaan one belt one road waxay u bixiyeen wadooyin tareeno iyo dhuumo shidaalo qaada iyo jidad isku wada xiran iyo dekado inay adduunka lacag ku dhow ilaa iyo intaas oo bilyan inay geliyaan ay rabaan oo ay ku
ay ku keenayaan ku project gareynayaan ama ay ku soo bandhigayaan awoodooda iyo saameynta adduunka dhaqaalihiisa iyo siyaasadda ay ku leeyihiin marka loolan dhinacaas ka jira loolan Middle East iyo bariga dhexe ka jira aad aniga dadka u qaba ma ay ruushka inuu awood badan uu soo celi karo ay jirto ruushka hadii uu gobolkiisa saameynta uu ku leeyahay oo ku filnaado ayuu nasiib leeyahay laakiin dawladda looga cabsi qaba inay adduunka saameyn ku yeelato ma aha laakiin dawladda laga cabsi qaba adduunka inay saameyn ku yeelato Mareykan indhaha ku hayo waa China laakiin annagana bariga dhexana waxa ka dhacday loolankaas ay sheegay oo la kala baxay marka waxaan u baahanahay deganaan iyo xilkasnimo iyo miisaan caadifad ka fog in lagu fiiriyo maslaxada Soomaaliya ay ka heli karto iyo halista Soomaaliya ugu imaan karto meeshana laga saaro walaalaheen iyo walaasheen iyo adeerkeen maaha siyaasadda arrimaha dibadda waa maslaxa ay ku qotontaa taas la xiriyo la tixgeliyo waa maasantii